talis la yiraahdo oo tusaaleyntaasi ay naga filan tahay gabayga samatalis waxa uu huwan yahay haybada iyo karaamada ay suudaamadu lahaan jireen oo aan maanta ka marnay gaar ahaan Suudaan Maxamed Cabdulqaadir Suudaanka guud qiimaha iyo karaamada uu qaranka ugu fadhiyo ayuu si toos ah u tilmaamaya haddii aad maqli jirteen shahaado la isku doonsiiyo suugaantana waxa la isku guddoonsiin jiray suugaantana waxa la isku guddoonsiiyaa iyadana sharaf baa la isku guddoonsiiyaa waxaanay noqotaa taariikhda qayb weyn bay ka gashaa buugaagta iyo taariikhda qayb bay ka noqotaa waana la isku sharfaa waana shayga ugu magaca dheer suugaanta la isku sharfaa gabay sharafka ah ayaa wuxuu ku bilaabmay sidan wuxuu yidhi samatalisku siduu beri ahaa saani iyo guurti Suldaan Maxamed Cabdulqaadir Bawsida Baaldahabe suugaan sharaftu samataliskay saaraysaa ubaxe soo unuga gabayada rag baa saakin ku ahaaye sabanka iyo sifaalaha jiray soo gudbinaysaane saadaala waa lagu arkaa siday asteeyaane siciidow waxaa lagu hirtaa sulub deeqsiyahe saddexe ilayskii baxaa saani kuu hagee sagal daay waxaad beegsataa sabab barwaaqeede sifaha rag baan wada sidnayn sawdka tala keene sooma liice geesigii samaha soo hirgeliyaaye anna sadarka eriyada waxaan siinka oga qaaday een saaka kuu soo igmaday waa sinaan qaran Suldaan Maxamed Cabdulqaadir oo samawadaa tahay sollay gacanta iga hoos gashoon soo ligligayaay sina waan u goobiyaalayaa soofka duniyadii siibashana kollayni ragga wuu siblanayaay soo xulka guurtida sabaha guddida loo saaro si unbay u maarayn jireen soo jireenadii suugaantaan tilmaamiya sidaan higil u soo saaray sagalka iyo heegada haddaan sare u sii dhaafo saddexdaa sidii sagal gudguday saradhig ma u yeelay sagamlaha hilaac sida geedba iska daba miisay saddex kalena waa sidaynu murtida isugu qiimayno sumadda taariikh cad baan siiga qarinayni sidaad hawl kasta oo dhacdaba uga samaan taliso eenad socodka uga caajisayn sugan xaqiiqaduye waa suugaan yaqaan soo kaco sida hibadii cabdiwaaxid subaxdii uu sibladay ee siibashadu gaadhay suryo halisa isagoo oo ku jira suran celiyoona sida haadka waa adigii dal dheer kala soo lalay sifaha haybadaa iskala samataliseede soddon iyo seedaynu nahay seede iyo jiili isqadarin suldaamada sida loo cisaynayo asalkeeda Soomaali oo dhan baa sinji u lahayd suldaan karaamaysan oo suuban baa tahay sabada aad ku nooshiyo halkaad socod ku soo gaadho sacab iyo salaan diiran baan soo galbinaynay soodimaha adduunkaad si culus loogu sugantahay suradda intii rarata seeyadii awrta suldaan islaam baad u tahay sawraca Soomaali sida sagalka roobka ducada kula socotaa saddexdaa sidii sagal gudguday saradhig ma u yeelay sagamlaha hilaac sida geedba iska daba miisay saddex kalena waa sidaynu murtida isugu qiimayno suldaamada anigoo dhammaan wada cisaynaya oo ay samaan mudan yihiin saanigii dhaqanka halka saaka gabaygu cuskaday waa sandaladii soo jireenka soo yaalayba sida karaamada suldaamo iyo culimada sidaynu isu xaqdhowrayno waa sad aynu dheernahay dunida sumad qiimo leh inkastay is-eedeen dadkii isu hiloobay oo ay saaka kala qaybsan yihiin oo sadarba meel joogo masal guurin dhaqankii haddana suubanaan jiray salaadiintu suunahay xigaan waa sugnaan dahan saddexdaa sidii sagal gudguday saradhig ma u yeelay sagamlaha hilaac sida geed ma iska daba miisay saddex kalena waa sidaynu murtida isugu qiimayno Suldaan Maxamed Cabdulqaadirow samawadaa tahay salaan sharaf leh baan kuu sidaa cisi iyo maamuuse soo baxa ilayskaa tahay sama ku noolow aamiin waayahay adduunyada taariikh ayaa ka hadha suugaantuna waxay leedahay marin furan iyo marin xidhan marin laga gabi karo iyo marin aan laga gabi karin suldaamada oo aan ku soo sharfay gaar ahaan Suldaan Maxamed Cabdulqaadir qiimaha iyo qaayaha uu qaranka ugu fadhiyo waxaanay eriyadani ka mid noqon doonaan buugsugaaneed insha Allah soo bixi doona adduunyada magac iyo taariikh ayaa ka hadha gabaygaas samatalis waxaan ku soo sharfay kuna soo maamusay qiimaha qaranka ugu fadhiyo Suldaan Maxamed Cabdulqaadir. Assalaamu calaykum.